bulshada rayidka ah ee gobolka Carta ayaa xaflad ballaaran ku qabtay degmada Weeca oo ka tirsan gobolkaasi. xafladan oo ujeedada loo qabtay ay ahayd hambalyo ku wajahan midhihii ka soo baxay ololihii doorashada ee dhawaan ka dhacay dalka. dhalinyarada haddaba iyo hooyooyinka culibaa udiinka iyo dhammaanba bulshada reer Weeca ayaan u kala hadhin qabanqaabadan. barnaamijkan oo ahaa mid si weyn loo soo agaasimay ayaa qada sharaf loo sameeyay dadkii iyagu codadkooda dhiibtay ee ugu deeqay xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle. goobtaasi waxaa ka hadlay dad fara badan oo kala duwan, bal haddaba aynu dheehano qaar iyagii ka mid ah iyo wixii ay yidhaahdeen. hooyooyinka aabbayowga halkan isugu yimid hambalyaan leena culayskii aan qaadnay bisha 8 ayaantii meeytiinka la qabanayay kelmad baan nidhi mudane madaxweyne annaka nagu talagal baan nidhi haddaan nahay gobolkii Cartaad nagu talagal baan nidhi tiina way dhacday waa dhamaynay waxaan leeyahay madaxweynaha Jabuuti maxaa ku dhahay shicibka Jabuuti hambalyaan leena hambalyo dhalinyarta maxaa ku dhahay Jabuuti joogta koroneelada nooba kala hadhin maanta gacanta isqabsanay waa ku soo baxnay maanta maxaa ku dhahay haddaan nahay gobolkii Cartaad haddaan nahay si baanoo ku hadlaya afka hooyada Weecaad aniga oo inta uu madaxweynuhu joogo erbebeeda u soo shaqaynayay anigoo halkii taagan oo sidii shaqadii u wadno waxaan leenahay mudane madaxweyne hambalyo culayska lagu saaray ilaahay ha kula qabtaan leenahay anaku waxaan nahay intii garab joogtay intii hambalyaynaysay intii la shaqaynaysay anaku intaa baan nahay waxaan leenahay mudane madaxweyne oo garab joognaa waa ku salaamaynaa culayska Allah kula qabtaan leenahay marwadayada koobaad marwa qadar maxamuud xayna waa salaamaynaa anaku haddaan nahay gobolkii Cartaad waan ku garab joognaa filistaasyo baan ku leenahay mudane madaxweyne culayska weligaaba noohay baa ku leenahay annana garabkaagaan joognaa koroneelada halka garabkayaga jooga dhalinyartayada kadariyeega intaba waan salaamaynaa maanta meel fiican baadna gaadhsiiseen culayska Allah nala qabto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalayaal waxaan u maraynayaa xafladan maanta halkan la iskugu yimiday bishii 8 natiijadii halka ka soo baxday guusheedii ayaa maanta halkan la iskugu yimiday waxaan leenahay barasidaga waa ku mahadsan yahay hambalyo leenahay waxa si geesinimo leh annakuna waxaan halka kaloon ka sii hambalyaynayaa dhalinyarta hadday od tahay maaragtay director tahay hadday maaragtay kaadar tahay hadday concentrate tahay hadday xagga kale ciidamada tahay hawsha ay isgarab taageen ee maanta ay nala fuliyeen ba iyaguna way ku baadsan yihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan halkaa ka jeedinayaa anigoo Cusmaan Cali Dhabar oo reer Cartaada madaxweynaha hambalyaan leenahay madaxweynaha hambalyaan leenahay inta hawsha la qaabisay ee Colonel Cumar Buux iyo maaragtay ciidamada iyo shicibkaba iyo Cabdilaahi Cabdiba intaasina way mahadsan yihiin baan leenahay hawsha sida maaragtay wanaagsan ay u dhacdayna maaragtay waan ku garab joognaa mudane madaxweyne وشهد الله كل قبطان كلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال واد ما هتسنتين انت نهالك اسكوت مداي رجع عرتا يا ويعة ولا ليال شقدي قبطان يتيان وذا قبنا بواد وذا ما هتسنتين مدحوينه اننا waxaan u diraynaa salaan qaali ah waxaan salaamayaa halkan oo salaan qaali ah u dirayaa hooyo Qadar Maxamuud Xayd madaxweynaha qaaligaana waxaan leenahay noo jirimaad hadduu Ilaahay yiraahdo awsha lagu dhibayna Ilaahay kula qabtaan ku leenahay wad maadsantiin akali neesaxi hayteenimhi adcalle saxto neesaxi neesh sharafni habba hayteenimhi gadasiin xasan nibaado habba umuno habba ani hay
nibaado anihay nibandiirad anihay niwageri anihay waxaan nigu wala salaamayaa on salaanta weyn ee 99 magace ilaahay yaa nigu salaamaya ta kale haddaan maanta salaan sidno oo victoireka maanta noo soo yitay aan salaanto waa hooyada ilaa cali cunaaya ilaa karta oo maanta ku wala joogna halkan salaan baan madaxweynaha u diranaa kashka iyo laabta annaka u yeedhanay madaxweynahan hadda u maleeya dumarow ballantaran waa inaan adkaynaa waxaan ta kale mahad u celinayaa dee geedka haddaan biyo lagu shubin ma dhaq muu beermaa dee rag baa guntiga u xidhay oo dharaar iyo hameen shaqadoodii dhulka u daayo Jabuuti u yimiday waa la sheegay rag Jabuuti joogaan rag teelay ka yidhaah laakiin waa been raggan waa natiif waynani wala hor joogaan aabayaashoodii awyaashood baa la garanayaa waxaan leeyahay ragga dhixirka wax dhow waliba kale waxaan kaloon ku xijisiinay hooyo waxaa jirta inakay naga mida oo bugta oo jiifta war raggii tabay ee yiri soo kiciya ha vootayse raggaasi mahad weyn bay leeyihiin hadda bilisa uma tahay misamaha inaan isin dhabuuxino weeyaan raggani waan ku celinayaa haddana ee masuulada ee kaadarada ee inamadeenna ee ciyaalkeena dhalay waxa weeyaan raggii hooyada jiifta soo kutubiya naga yiri biloo rag kale may odhan kelmadda may yidhaaheen xoogoogiyo xalaalana ku amal falay walaaladeenna jaamagartada hadal baan odhanay mudane Ismaaciil Cumar Geelle waan ku garab joognaa de rag baan garab joojiyay waa directeeradeena waa ragga kaadarka Jabuuti noo gala ee masuulada qaaliga ee nimadeena ee waqti walba shaqada Ismaaciil Cumar Geelle jirtana teeraanka ragga kale uga soo horeeya hadda ma tahay mise maaha marka waxaan kaloo hadal ku hambaleynayaa hooyada mi iyo magaalaba Khadra Maxamuud Xayd oo bilis haddaan nahayba aan leenahay hambaliyo assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh dadkii soo shaqeeyay guusha madaxweynaha maanta u soo hooyatay dadkii soo hooyay horta mahadnaq weyn bilihiin oo balaar inta arti joogta inta waa joogta way warmaatay in qodbadiisa u dambeysay madaxweynuhu carta uu ku yiri wuxuu yiri anu waxaan jeclahay wadajirka wada noolaashaha walaalnimada wax wala qabsada marka inaan anakuna aan ogaanaa weeyaan maxay ahaday hadalka madaxweynuhu yiri in la wada noolaado walaalnimada inaan la ilaaliyo oo la soogaado intaasaan kaga baxayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول الله مجا عدلنتي سواق بقابس مالنتن أقول ما أدرنا هم بليو جوشي قروح بدنا نسويتي مدحوين إسماعيل عمر قلة أولا وحن جعلنتي كسر قريب كشيء سيد قروح بدنا نصو شرفسي إن أنو مهنقو ثانيا وحن جعلها إن هم بليو أدرنا مدحوينها قروح دا إن جوشي قروح بدنا لو قال مالنتي دويد أنو شغنو أنا كهدان هاي دلنتي كسر جوتي دعم الدواعي عرتا إن أنا قرب جوجنا إن الله شقينا وأنا قارسينا ماشى ودك كوضة أو مال قروح بدنا أو هرمرة أو شقال لوجه هلا وحكي سبعة بورتا توجد بيسا توجد بيسا وحنو مهنق يعدد كي إن سوق قبيلي مال قليل أقلي إياه مرق بكوسات درست فكرة إدباد مالستين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barnaamijkan ayaan u kala hadhin dadka deegaanku waxaana goobahaasi laga soo jeediyay hambalyooyin aad u fara badan waxa iyaguna jiray hooyooyin iyaguna mahadnaq weyn u jeedinayay dawladda oo qaarkood ay isticmaalayeen ereyo suugaanaysan wana kuwan bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga fadxiya jaamac aadan baa la yiraahdaa anigoo madaxweynaha la hadlay waxaan leeyahay dal wanaajiyo wadaan dunida ka naqaan dahablamoodiyo wadaan ku daba joognaa dayixii afrika oo daalimayna waan ku daba joognaa adna naga daalinayna daadi maalintii hoggaanka dalkaad qabato waa noo bariya cid noo soo baxday afarta gobol iyo caasimadda wax la qaybsano meel la joogsanay waxaan leenahay sidaan doonayna gobolka Cartaad uu Ilaahay noogu ridaan leenahay madaxweynuhu annaka aabbo noo yahay inkastoo wadankooda aabbo yahay annaka aabba si gaar ayuu noogu yahay isagaana sameeyay waxaan leenahay mudane madaxweyne hambalyo sida quruxda badan ee shantii koondidaay kula tartamay sida ilaa caad u dul martay ayaan mudane madaxweyne kugu hambalyeynayna cimri dharar iyo caafimaad qabaan ku rajaynaynaa marwada madaxweynahana salaan qaali ayaan u tabinaynaa
ugu dambeyntii barnaamijkaasi waxaa soo gunaanaday taliyaha ciidanka booliiska jamhuuriyadda Jabuuti Korneyl Cabdilaahi Cabdi Faarax waxaana ereyadiisii ka mid ahaa waxaa farxad weyn annagoo halkan isku nimanay yar iyo weyn aabiyo hooyo wiil iyo gabadh si aan halkani u muujino taageeradii aan la garab galnay madaxweynaha uguna hambalyeeno guushu gaadhay isaga iyo marwadiisaba taayna waxay ka jawaabaysaa ballamaan qaadnay oo odhanaysa haddii lanagu xamanayay jaamagarato macaarad baa ku dhex jira inaan muujino inuu magaaradka naga dhex baxay oo nadii toole madaxweynaha dhammaanteenba aan wada daba joogno kuna muujinay natiijadii ka soo baxay saxaaradaha wax waa hadal waxna waa ficil baan da ku muujina anagu taasi waa munaasabadda halkaan isku nimadnay waxaa intaan raacin oon ku darayaa waxa weeyaan marka la yidhaha jaamagarato ummaddan uu ilaahay meel ku wada abuuray ku ima ku dhashay iyo ku hore ugu dhashay iyo ku waalidkii ku dhasho ka tegayba gebi jaamagarato la isku wada yidhaha nin mangaaban unbaa sheegto yidha anaa ku dhashay kii hore kuma dhaleen laakiin waa lagu wada dhashay waana loo wada dhashay waxaa ka muhiima ay murtidu tahay dadku waa dad isleh waa in is wada dhashay oo meel la kala tegin nuucuu doonay ha noqday waxaana ummad meel ku wada nool ilaahay meel ku wada abuuray oo is wada dhashay ee wax ku gaadhaa isku dubni waxay wax ku gaadhaa ismaqal waxay wax ku gaadhaa nidaam iyadoo nidaamsan maanta haddii halkaa joogno annagu waxaan diyaar u nahay waxaan filayaa dhowr raggayga mas-uuliintii ee halkaan ila joogtay oo aan wada sheekaysanay naga wada dhadhacsana si aanan beritoole aadno odhan markaan hor nimaadno shalay baad ballan noo qaadeenoo waxbaad ka qaban weydeen waxaan jecelnahay maalinta dambe aynu hor nimaadno inaan hor nimaadno ininku annaka naga raaliya oo wixii ballan qaadnan hadduu ilaahay nala qabto intii aan qaban karna aan qabanno wax aan kugu fadhiin oo culus oo la sidi karin ballan baa jirta dee ilaahay noo fudeediyo annakuna aan qaban yaan jeclahay sidaayna wax inoo suurtoobi uun haddii aan isku duubannahay oo wanaag iskugu duubannahay haddii aan inaku isnidaamina dhexdeenna si warku inoo soo kala gaadho waayo inta badan wax ku xumaadaan dhexda ay ku joogsanayso koose iyo kasare suu iskaga warhayo inaan nidaamsanaano ishagaajinno haddaan ishagaajinno waxaan filayaa tirada intaan ku noolnay meeshan wax badan maaha wax badanna waa laga qaban karay oo si yaro fudud looga qaban karay wax lagu farxana waxaa jirta qof dhibaata haysto oo dhibaatada ka dulqaaday taa diyaar baan u nahay intaan qaban karna inaan qabanno inaguna haniga timaado xaggiina is-ogolaashe isnidaamin iyo isku duubni inta haddii la helo insha allah waxaan dib isku soo hor joogsanaynaa annagoo wada faraxsan oo raalli iskaa wada qoslayna waad mahadsantiin daawadayaal intaasi waxaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ah ee aanu kaga hadlaynay qada sharaf ay isku soo dubarideen dadkii ka qayb galay ololihii doorashada ee gobolkaasi Carta oo hormuud ka yahay Korneyl Cabdilaahi Cabdi Faarax anigoo cali seeye ah ayaa barnaamijkan idiin soo gudbinayay film qaadaheena wuxuu ahaa Sayid Maxamed Cumar dhinaca farsamaduna waa Cumar Cabdicasiis Atamimi oo afkooye loo yaqaano intaynu mar dambe wada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo